السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قاليga aan jeclahay soo dhawaada meel kastoo adduunka aad ka joogtiin. waxaan idin leeyahay farxad ku waara. kusoo dhawow channelka haddaad igu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay. fadlan waxaan kaa codsanayaa channelkeena subscribe saarto, like saarto, sii share gareyso. haddii aadan igu cusbeen ood hore ila joogtayna aad ayaa u mahadsan tahay. like-ta ii saar ii share garee. aad wada mahadsantiin dhammaantiinaba. waxaan idin leeyahay ramadaan kariim. asxaabteyda qaaliga aan jeclahay maanta waa jimco, marka insha allah ilaah khayrkana wada waafajiya dhammaanteenaba. marka asxaabay waxaan rabaa inaan idinla wadaago sidaa ka arkaysaan sawirka shaashada noo saaran. maanta qurxintii waaye sidaa isku qurxin lahayn insha allah. soonki iyo isqurxintii waa la isku dhex wadaayaa maadaama loo badan yahay gabdhaha jiko loo badan yahay maalmaha ramadaanka aad loogu badan yahay. adoo jikadaada ku jiro hawshaada adduunya haysto ayaa waxaa la rabaa inaa qurxintii oo si dabiiciina aad sii wadid insha allah inta ciidda laga gaarayo ilaahana gaarsiiyo. marka maanta maxaa ka subsanaynaa qurxinteena? waxaa ka subsanaynaa bariis ayaan ka subsanaynaa. bariiskaas oo aad soo dhaqaysid waa soo dhaqay adi bariiskaa haysato waa bariis. marka bariiska waa soo dhaqaysaa, waa soo nadiifinaysaa, wax yaraa soo dhaqaysaa oo adi markaas asleeda wuu kugu filan yahay ayaad soo dhaqanaysaa, waa soo nadiifinaysaa. kadib digsiyaad soo qaadanaysaa, kusoo shubay biyaa kusoo shubaysaa oo aan badnayn. waxaa la rabaa bariiskaas inuu biseel noqdo, la rabaa si fiican uu bislaado, inuu macnaha lama raba adeeg iyo waxaas inuu noqdo. bariiska markuu biseel noqdo xoogaa oo aadna u qaleel u noqonin oo jilcan yahay ayaa waxaad subinaysaa. dabkaa kasoo dejinay. dabka markaa kasoo dejiso waxaad soo qaadanaysaa qalaadadii ama weelkii makiinada yariista ayaad soo qaadanay. bariiskii ayaa kusoo shubanaysaa. markaa kusoo shubato waxaa kusoo daray yoogad, 2 qaado yoogad haddii aadan haysanina caano boore oo aad soo qastay, waxyar aad soo qastay oo biyo aadan ka dhigin oo ayaad 2 qaadee ayaad kusoo darsanaysaa. haddaa yoogad haysatana kasii fiican. kadib maxaa la dhahaye makiinada kusoo shiidaysaa. ayaama dhawe tiktoka waxaa laga lahaa yoogad maxaa la dhahaa yoogad dadkoo dhan waa wada yaqaaniin. marka ma aqaanin wax af Soomaali kale u yaqaanin laga yaabaa dadka qaarkood. marka yoogadkaasiti haddaa heli kartid muhiim waaye, haddii kalena caanahana waa okay. haddii markaas wixii aa haysato caano boore ama yoogad ayaad kusoo shubaysaa. kadib waa isku soo shiidaysaa. markaad soo shiido oo kuu noqdo maxaa la dhahaye kareem caadi oo kaala arag oo kuu noqdo, waxaad subinay waad iska miiraa qaadanay waad soo miiree suusan wax taagtaag iyo waxba u yeelanin. kadib waxaa kusoo darsanaysaa fitamiin ayaa kusoo darsanaysaa ama seeramka wejiga loo isticmaalo midkaa haysato ayaa kusoo darsanaysaa. kaale iska aragaan ku dhahay wejigaaga quruxda oo ka qaadayo malin kartid haddaa wejigaaga marsatid. bariiska iyo caanaha wejiga aad ayay u caddeeyaan asxaabay. kaas yaa la moogaane wejigaaga caddaan qurux badan oo dhalaal ayuu ku siinayaa. marka maalin dhaweed gabadha ila soo hadashay aniga tiktokeyga waxaa saaran nambarkeyga ayaa saaran. dadka igu xiran way fahmi karaan. nambarkeygaa saaran. nambarkeygaasna waxaa ka furan whatsapp. badanaa su-aalaha halkaasaa laga soo weydiiyaa whatsappka. badanaa tiktoka ma arko su-aalooyin badan oo laga soo weydiiya tiktoka wuu jiraa. tiktoka video markaan soo dhigo waa isaga danaystaa. badanaa inaa arkinaa laga yaabaa, wayna u badan tahayba inta badan. waxaa laga yaabaa video aan soo dhigay adiga bil ka hor inuu gadaal ka qarxo oo kommentiyo badan laga soo bixiyo. videogaas soo iga jiraa soomahan 7 mid aan soo bixiyo waxaa laga yaabaa inuu qarxo oo dad badan arkaan kommentiyo laga soo bixiyo. badanaa marka gadaal ma u raaco, laakiin markuu videoga cusub yahay waa u jawaabaa qofka. marka asku soo duubay gabadha waxay iga soo heshay kulley way dhageysan doontaa videogan.
qofka markuu aniga oo tiktok xaggiisa igala soo xiriirane linkigayga u diraa waxaan dhahaa youtube-kayga soo booqo maadaama xagga uu igu xiran yahay uuna isoo raadiyo oo whatsappkayga uu imaaday marka gabadha waxay dhahday waxaa isticmaali jiray bariis isticmaali jiray iyo haruud bariiska iyo haruudana aad ay wajiga ugu fiican yihiin aad uuna wajiga u caddeeyaa marka bariis iyo haruudan isticmaali jiray dhahday wajigayga weligeyna daawo ma marinin maasha allah ayaan leeyahay maasha allah weligeyga daawo ma marinin dhahday bariiskaas iyo haruudaas ayaa isticmaali jiray wajigayga wuxuu noqday tiri waji cadaan badan kaala arag wajigaas oo igu dhalaal igu cadaada mali kartid dhahday qof kasta wuxuu leeyahay tiri maxaa marsatay aan waxaan dhihi jiray tiri waxaan marsadaa bariis iyo haruud ayaan marsadaa kadib bini aadanka dad waxaa ku jiro aan ku dhehaynin maasha allah aan ku dhehaynin ayaa jiro iyo dad waxaa ku jiro aanba kuu ogoleen wax yar inaad isbedeshid kuu ogoleen oo xaasid ayaa jiro xaasidka maasha allah ma ku dhahaayo marka laakiin qofka fiican wuxuu ku leeyahay markuu isbedel kugu arko maasha allah waaw waaba qurux badnaatay yaantaani maxaa isticmaashay maxaa iska kaa bedelay waxaasa isticmaal markaa dhahda maasha allah aada u qurux badnaatay uu qofku ku leeyahay maasha allah wuu ku dhahay soomaha laakiin kan xaasidka wuuba ka naxaabo inaa qurux badnaato inaa isbedeshay wuu ka naxayaa marka maasha allah ma ku dhahaayo marka waxaa la rabaa qofka inaa dhahda maasha allah idheh marka alxamdulillah waxaa jira maasha allah idheh markaa dhahda ku dhahaayo maasha allah ma ku dhahayo maasha allah aniga xataa way igu dhacday saasada ka hor maasha allah idheh ma ku dhahayo maasha allah aladheh marka waxa waaye ma fiicna xaasidnimada qofka aduuba xaasid yahay asaga laftiisa ma hormaraayo xataa xaasidnimada qofka oo xasidka asaga laftigiisa wejigiisa ma nuuraayo xasidka wejigiisa maba nuurabo hadduu wax kasta marsada xataa wejigiisa madow loo ahaanaya calaashan wuu qayirnaanaya madowga aniga ma haysto madowga sidiisaba waxa waaye waa dabiici quruxna sideeda madow iyo cadaan ma ahan laakiin wejigaaga inuu iftiimo ayaa qurux oo maxaa la dhahaye oo aad dhalaashid oo wejigaaga aad daryeeshid ayaa muhiim laakiin maxaa ugu horeeya iimaanka qofka hadduu iimaan leeyahay wejigiisa wax kasta uu mariyo uu kasoo ifaaya uu dhalaalaya laakiin qofka hadduusan iimaan lahayn wejigiisa waxa waaye ma isbedelaayo mugdiloo kasii qaadaya marka iimaanka allah na geliyo iimaankana allah nagu duwo iimaankana allah nagu dilo iimaan la-aan ma fiicno qofka walaalka waxaa fiican haddii uu qurux badan yahay inaad dhahdid waa qurux badnaatay maasha allah ilaahay ku saa'idiyo kas adigana ilaahay waxa waaye uu ku siinayaa iimaanka uu ku xiran yahay qof waa waxaysanayo waxaa leedahay maxse waxaan ku hel qofkan laakiin adisee ku hesho waxaan laakiin see qofka ilaaha siiye maxaa ad ilaa ma hilmaanta ilaaha siiye waxaa lahaa ilaahu ku saa'idi wax ma heshaa maasha allah ilaahu ku saa'idi anigana ilaahu isii dhahdaada hisanin marka qofka bini aadamka waxaa loo ogolaadaa mawduuc waa ka baxay maadaama gabadha hadalkeeda iyo qiiradeeda aad isii qaaday gabadha wejigeeda muxuu noqday marka warkii aan waday gabadha wejigeeda wuxuu noqday wejiga inuu barbararo inuu wejiga uu maxaa la dhahaye wixii markay marasa wejigeeda uu bararaayo wejigeeda uu isbedelay ayuu noqday marka maxaa la dhahaye xasaasiyadu ahaan lahaa horey usoo marsatay wax badan amarsanaya dhiis sooma marka insha allah ilaahay gabadhana ha caafiyo waa rajeynaya inay caafimaado haddii ilaahay idmo marka walaalayaalo maasha allahda halaysugu kaalmeeyo qofka haddaa aragtiin yaa walaalkaa ah maasha allah hala dhaha adina ajaraa ka helaysaa marka asxaabteyda qaaliga aan jeclahay gabadhaas abaayana kulley way dhegeysan doontaa waxaan dhahay waxaad u bedeshaa bariis iyo caano bariiska iyo caanaha bedel oo jooji maya haruudda ka jooji ayaan dhahay bal bariiska iyo caanaha baroobee bal bariis iyo caano bariis iyo haruud kaliya ahayd waxay marsanaysay laakiin bariiska iyo haruuddana aada weji u caddeeyaan laakiin bal joojiyo bariis iyo caano bal ku bedel ayaan ku iri marka waxaan jeclaystay idinkan inaan idinla wadaago bariiska iyo caanaha faa'iidada uu leeyahay seeramna waa ku darsanaysaa wejigaa kaale iska arag ayuu kuu noqonayaa intaa kiimika isticmaali lahayd waxaa kaaga wanaagsan
inaa isticmaasho waxyaabahan dabiiciga ah oo wejigaaga ku cadeynayo kuna qurxinayo ku dhalaalinayo kuna kalsoonaato wejigaaga insha Allah haddii aad u dareento wejigaaga inuu allergic iyo cuncun iyo wax uu kuu keeno waxa aad marsanaysid waxaa loo baahan yahay inaad iska joojisid marka ugu horeysaba waxaa ku bilaabaysaa wejigaaga qayb ka mid ah ama garka hoostiisa garka calaashan aad ka marin ama dhawankaaga qayb ka mid ah marka cabaar ku joogtid ayaad maxaa la dhahaye hadduu ku cuncuno waa iska dhaafaysaa wax kale ku bedelanaysaa hadduu ku cuncunina wejigaaga marinaysaa wejigaaga haddaa mariso cuncun ka dareentidna waa iska daynaysaa cuncunku waxa waa allergic waa marka asxaabtayda qaaliga aan jeclahay kareemooyinka kaleeto oo xataa oo laysku cadeeyo dada allergic ku qabo allergigaas qofku markuu kusii wado wejigiisa wuu isbedelayaa kadib wejiga gaduud uu ka galayaa wejiga ka gubanayo qofka marka waxaa la rabaa wejigaaga markaa wax aad marinaysid inaa aad maxaa la dhahaye aad ka taxadirtid ayaa loo baahan yahay midda kalena kareemooyinka wejiga markaa marinaysid midka dabiiciga ka hadlaa ani kan kale maba isnaqaanee waxaa loo baahan yahay inaad wejigaaga aadan ku hoolin aadan macnaha ku xoqin ayaa loo baahan si caadi ah u marsanaysaa haddii aad ku hoosho waxaa laga yaabaa wejiga inuu dhibaato kaaga geysto waba kaaga geysanaa sababta wejiga laguma rogo wax sidiisaba laguma rogo wejigaaga waa soo dhaqaysaa waa soo nadiifinaysaa asagoo qoyan oo aadan maxaa la qalajinin ayaad kareemka markaas adi aad soobsatay aa marinay markaa mariso si caadi ah u marinay wejigaaga inaad gaarsiinaysaa markaa gaarsiisid muddo 20 daqiiqo 15 daqiiqo ayaa wejigaaga ku haynaysaa adi intuu kaaga qalalo ayaa wejiga ku haynaysaa markaa wejiga ku hayso waa iska dhaqaysaa biyo ayaa isaga dhaqaysaa saabuunta haysato face washka midka isticmaasho ayaa isaga dhaqaysaa maalin walba daily sidaas ayaa ku wadaysaa marka maalin walba markaa wejigaaga aa maristo 7 ayaa horta sidiisaba kareem 7 ayaa lagu ogaadaa wejigaaga faa'iidadiisa inuu wejigaaga wax iska bedeleen in kaleeto 7kaas marka adi aa wado ayaa ogaan kartaa marka waa inaad 7 ku wadaa waa inaa u samirtaa oo kareem walba waa loo samraa marka kadib ayaa ogaanaysaa wejigaaga quruxdiisa sidoo ku soo baxay sidoo kugu dhalaalay ayaad ogaanaysaa marka asxaabtayda qaaliga aan jeclahay muhiim waaye inaa wejiga laga taxadiro oo waa muhiim marka asxaabay aad u mahadsantiin waan rajeynayaa fiidiyoyaal kaleeto inaan idin soo geliyo haddii ilaahay idmo insha Allah ayaantan dhinaca codka ayaan update ka ahay insha Allah waa iyada lafteedu waxa waa haddii ilaahay uu qadaro oo ilaahay saamaxo le wax la doobi karaa ilaahay caafimaadka noo saa'idiyo inta haysanin Allah sii dambi dhaafna Allah wada daro dhammaanteena dambi dhaaf Allahna wada siiyo asxaabtayda qaaliga aan jeclahay waa idinka si tagayaa waaniga qurux dumar official towa waxaan idinkaga si tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod dambe oo xiiso leh fiidiyowga xiga inta aan ka gaareyno insha Allah